ma jirto Soomaaliya meel ay ka dhacday qabiil haysta oo sida xoolaha habeenkiina soo xariisanaya aroortiina oo wada ka qaadayo tirsanaya casarkii 1 iyo 2 iyo 3 ma jiro qabiil sayrad laga furay gobolkiisii oo dadkiisii sayrad loo furay sidan horeba u sheegay shakhsiga bini aadamka ee reer Laascaanood soo deyntiisu $100 bay mareysay shalay ana Laascaanood joogay xaqiijinaya $100 bay mareysay aruurihiinii iyo maatadiinii iyo wiilashiinii yareeraa iyo gabdhihiinii iyo dumaradiinii baa inta jeel lagu xareystay oo xabsi lagu xareystay afka laga dhacay kab oo badhaawacan yahay oo badh madax wada daloolo oo badh wada dakhran yahay oo badh gacmo googo'an yihiin baa inta jeel lagu xareystay leedin yiri keena lacag waliba leedin ku soo daayay waxa dugsanaysa waxaan kaloo la hadlayaa maamulka liita maba liitaan iyagu ee falsafad bay wataan laakiin waxaan la sii hadlayaa nimanka daba taagan ee daba jooga dhinacyada waxaan idin su'aalay isaaq mabda abuu leeyahay qadiyad buu leeyahay hadaf buu wataa iyo haykalo meel buu ku socdaa waxaad iiga soo jawaabtaan idinku waxa wadataan horta waxa idinku wadataan kaliya maxay tahay markaan fikirkayga ku darsado wax kale oo aad wadataan ma jirto waxaad wadataan miciis aad u liita iyo meeqaam hoose oo liita iyo soor sharaf iyo karaamad daran oo ilaahay idin tusi waayay inay dhulkiina taalo iyadoo sharaf leh inaad muuse iyo ina kaahin oo agtaagnaataan bini aadamku sidiisaba ilaahay dadka uu abuurtay waxa uu siiyay wax aqli la yiraahdo waxa aqliga la yiraahdana waxa loo siiyay sayidka looga dhigay bini aadamka in wax ku kala garto oo waxa xun iyo waxa wanaagsan waxa munaasibka iyo waxa aan munaasibka ahayn waxa ka qormaya iyo waxa aan ka qormayn qofku waxa laga dhageysan karay iyo waxa laga dhageysan karin inuu aqliga ku kala gartaa loo siiyay ingiriis galbo gumaysta oo fajista waqooyiga Soomaaliya iyo meelaha soo gumaysan jiray oo yimi Talyaaniguna koonfurta joogay muwaadinna ma ahayn oo dhamanka gaal dubcad oo meesha yimi waa ummadda muwaadiniinta ah ee Soomaalida ah maanta laana wixii ay kala saxeexdaan ama kala qortaan waa la oran karaa de taariikhda way gali karaan laakiin nin 4,000 kiiloomitir ka yimi waa beri oo gaar ah oo gumaysta ah ba intuu beri noo yimi yiri halkan aad leedihiin wax aqliga gali karaya bini aadamka iyo wax iyaga ka qormeeya midna ma waxaan oran lahaa tala ahaan kelmadda iska daayaba haba soo hadal qaadin iyada wax idin ka soconaya iyo wax la idin ka dhageysanayo midna ma burciya hargeysa hadaad siinaysaa idinka idin jirtaa laakiin xuduud maanta dhul Soomaaliyeed ku taalo aad leedihiin gaal baa xariiqay absolutely wax suurta galaya ma waxaan ma aaminsanahay ma wax Soomaaliya aaminsan tahay ma jooga Laascaanood ku sugan tahay markaan idinka warramo Laascaanood meel qof damiir leh oo ma caaw u hooyan kara ma qof dubkiisu digiga xanayo oo dalkan iyo dadkan ay raja ka hayso meel intuu sooxdo uu ka soo tooso maahay waa meel dulowday oo la duleeyay waxa taalay ha hadli waxa anigu aan rabo mooyaane wax kalena ha sheegi haddii aanad aniga ii imanoo intaan hool iyo qol kugu xereeyo aan saxaafad kugu keeno aanad soo caayayn tolka iyo adiga walaalaha iyo adiga inta ku dhiidhiyaysa ku diirnaxaysa haddaanad soo caayan oo aanad eedaynayn oo aanad odhanayn waa gardaran yihiin kuwaasi dambiila tahay magaaladana joogi maysid taasaa taalla waxa taalla ilmahaagii oo iskuul ka yimi ama suuqa aaday inta la soo qabtay in la xareysto
dabadeedna lagu yidhaahdo lacag ma haysaadeen